Korneyl Shaamacab ayaa bartiisa uu ku leeyahay Facebook kusoo qoray qoraal uu kaga hadlayay xaaladiisa iyadoo maalmihi lasoo dhaafay lagu weysanaa ka gadaal markii uu dhacay dagaalkii kooxda Al-Shabaab ee kusoo qaaday deegaanka Cusweyne. Qoraalka taliyaha ayaa u dhignaa sida tan: Asalaamu calaykum walaalayaal, intii iga murugsaneyd waxaan idinla wadaagayaa inaan nabad qabo. Xilliga ugu dhow aan fursad helo ayaan si faahfaahsan uga hadli doonaa. Khawaarijta waan ka adkaan doonaa. Taliya Shaamacab ayaa waxaa xaaladiisa ka murugsanaa eheladiisa kuwaasoo baadi-goob ugu jiray taliyaha. Ugu dambeyn, taliyaha ayaa mareegta uu Facebook ku leeyahay kusoo qoray warbixintan. Wixii macluumaad ka soo kordho